عسكري واحد لا دوني منه ظلمي واديني عاشورة ديمنا ديكنا الودلا حولينا الودلا ما دونينو عسكرتنا لا قبطو ما دونينو عسكرتنا لا قبطو ادو الله يقان waxa soo dhaxgal dekadu ka soo baxay wuxuu yiraahday tirsmataraal istaagalii waa istidkan ka baakin ka gala uu yiri jaaman ka baa jidkan ka baxa uu yiri intii aba loo kaadin waa ku baasa uu sidaad xabadu dhaku dhahay haas aqli soconays ma noqon waa dhacda la yaab leh ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya markuu talada wadanka uu wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay bilaabeen inay laayaan dadka masaakiinta ee shacabka askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya maanta waxa uu $2 oo kaliya ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeysta gawaarida xamaalka waayaan daro waa nasiib daro maanta in ciidankii qaranka ay dadka masaakiinta ee shacabka ay lacag baada ku dilayaan hadduu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan muuqaalka la garee fadlan YouTube-keena subscribe noo saar oo rukumo si muuqaalada dambe ay ku soo gaaraan mahadsanidin ku baasa uu sidaad xabadu dhaku dhahay haas aqli soconays ma noqon ninka askari waay meel laga soo diray ma lahay aqli ma noqon dadu ka dhashay meeshan isa aqli ma noqon waxaan ka codsanaynaa dawladda in ninka gacanta noo keenaan waxaan garanaa darawaliinta dekada ka shaqeysanahay isagana waa ku dhibaataysanay magaaladan rafaad inta leen ku qabnaa cadaalad xumaan ugu hayso wax allaal wixii jawi jirin isa dawladda aan u sheegayna anaga wax allaal wax kasta ka dhacdaba wax allaal wax rabtaan noqoto maalin kasta nina naga dhinta anaga waxaasna waxaan anaga u dul qaadan karnaa manaan hadaan qori qaadayna loo sheeg hadii kale aan maano ummad ilaahay la midna isaga dara waayo waxaan ugu daran hamaalindaanaya in la rafaad marran anaga anshuur wax li kasta waa dhiibnaa laamiga aan ku soo lacagana laga qaadaa hal xabba kale kama rabna anaga dawladda wax allaale wixii anaga dulmi nagu hay inay naga qabtaan aan ka rabnaa wax kalena kama rabno horta maanta waxa u taaganahay baqma waa dagaal maalin kasta lacagteena aan lagu dilaa madaxweynaha waxa ka codsana ninka maanta naga dilay ka wartuna noo keeno midda labaad laga soo bilaabo taleex ilaa dekada lagu imaado waxa taagan askarta taagan waxa waaye haddaad lacag siinin inay ku dilaan oo gaari kala deegaan ku garaacaan waaye anaka ma doonayna maalin kasta lacagta dhiibno cashuur u dhiibno in lagu laayo mudana madaxweyne codsi waa markaan codsigeena hadda aqbali weedo waxa waaye anaka waxaas anaka naqaan waxaa ka rabnaa inaan askarta naga leexiso waxaa loo dilay ninkan lacag isi wax kala maaha gaareen wax cashuuray lacag isi shahaada waa waxa loo dilay gaareen cashuuran waaye dekada laga soo cashuuray meel kasta laga soo cashuuray waa la ogyahay baarka lacag isi shahaada lagu dilay waa baahana shalay ma shaqeen jimca waaye lacag isi lagu dilay bayaanka waxa waaye wuxuu yiri baarka xagga baakin waa loo baakimay buugu soo bixi yiri intuu buugu soo bixinay dilay aniga hadda wax indhayga ku arkay oo hadda goobjoog ma aanan ahayn laakiin waxaan cadaynayaa in maalin walba meeshaan caqabad gaadiidley ee haddaanahay ay nagu haysato oo waddada naloo taagan yahay 24 saac askarigii waddada taaganba oo isbaaro uu yahay yaa oo haddii aadan lacag siinin oo meesha sumaritaankeeda oo warkaaga jiraba yaa dawladda waxaa ka codsanaynaa inay nidaamkaas ay wax ka beddesho oo muxuu ahay isbaarada ay ka qaado waddada maxaa askari walba oo waddada taagan isbaaro u taagan yahay haddaadan lacag siinin meesha maritaankeeda ayaa kuugu xun ninkan intaa lagu dilay canshuur keena lagu dilay ninkii dilayna waa baxsadaa la yidhi ninkii labaad waa nagala dilooy wixii lagu dilaana laga rabaa ninka dilayna waa aamin shibi noogu sheegay waana baxsadaa la leeyahay koota baro waa la yidhaha wax kale loogu dara maaqaan darweylinana anaga baa gaadiid waa weyn wadaa maalin kasta ninaa saas lagu dilaa waa baxsan la yidhaha waxaas aqli miya intaasaa idinka rabnaa bis waxaan dalbanaa in cadaaladeen noola soo saaro miiska noola soo saaro oo ninkii dilin ninka noola keeno laba nin waa xataa ninka hore ninkii dilin waa la leeyahay in la keeno labadooda